Soomaaliya waxaa laga doodayaa fasaxidda qaadka ka yimaada waddanka Kenya. Nairobi waxay qarka u saaran tahay inay dib u hesho suuqeeda jaadka ee Soomaaliya. Malaayiin dollar ayay ganacsatada qaadka ee waddanka Kenya khasaareen tan iyo markii uu madaxweyne Farmaajo diiday dan ganacsi oo hal dhinaca markaas uu xirmay suuqii ugu weynaa ee qaadka Kenya oo ahaa u dhoofinta magaalada Muqdisho. Horraanta bisha soo aadan ee July, labada dal ee Kenya iyo Soomaaliya ayaa la filayaa inay saxiixdaan heshiis laba dhinac ah oo dib loogu fasaxayo qaadka laguna lifaaqi doono qodobo kale. Dowladda Kenya dhowr jeer ayay diiday inay Soomaaliya wax muuqda uga bedelato suuqa jaadka. Hoggaanka cusub ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa koox siyaasiyiin ah oo macaash doon ah waxay ku cadaadinayaan inuu heshiiskani degdeg u dhaco. walaaca ugu weyn ee dib u fasaxidda qaadka ka yimaada Kenya waa in madaxweyne Xasan Sheekh iyo saaxiibadii u xusul duubayaan in dad gaara oo xukuumaddii hore madax iyo wasiirro ka ahaa in loo xiro suuqa jaadka. Xubnahaas qaar waxaa la sheegayaa inay hore u soo galeen ballan ay Kenya gaar ugu maamuusayso haddii ay soo dhiciyaan fasaxa qaadka. Gudoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe ayaa la sheegay inuu durba gadood ka muujiyay qorshaha dad gaara la rabo in lagu xiro ganacsiga jaadka Kenya oo markii hore ahaa mashruuc ay dad shacab ah ka faa'iideysan jireen. Guuxa arrintan ayaa dhex yaalla siyaasiyiinta Soomaalida gaar ahaan waxa aad u hadal haya xildhibaanada Golaha Shacabka. Tan iyo markii uu madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ganacsigii jaadka ee Itoobiya siiyey dad siyaasiyiin ah waxaa dhinaca kale kor u kacay siyaasiyiinta baacsanaya qaadka dhanka Kenya. Sababta loo eryanayo ganacsiga jaadka waa in dhaqaale badan oo xatooyo ah laga dhex sameeyo. Gudoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya wuxuu sheegay dhowaan inaan la aqbali doonin hirgelinta heshiis aan la soo marin Baarlamaanka Soomaaliya, taasoo qasab ka dhigaysa in heshiiska Kenya loo diro baarlamaanka. Hadalka Aadan Madoobe waa fariin weyn oo door xul ah oo diidma xambaarsan, taasoo ka dhigan inaan lagu qanacsanayn sida dadka qaar uga fakarayaan inay u qaataan mashruuca jaadka ee Kenya ayay leeyihiin falanqeeyaashu. Xukuumadda imaan doonta waxaa hortaalla xisaab ku saabsan ka badbaadinta shacabka ee siyaasiyiinta madaxweynaha ku hareeraysan kuwaasoo u tafaxeedanaya boobka mashaariic loogu talagalay inay shacabku wadajir uga faa'iidaystaan. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo muddaxileedkiisii hore lagu eedeeyo inuu dalku la kulmay musuqii ugu baahsanaa abid ayaa mar kale waayihiisa cusub ku daafuri kara heshiis marna fadeexa dhali kara marna lagu faa'iidi karo. Uma badna inuu Xasan Sheekh sumcad badan ka qaadi doono haddii uu shakhsiyaad gaar ah oo isagu uu dana ku qabo uu ku abaalmariyo qandaraaska jaadka ee Kenya, wuxuuna degdeg u qaadi doonaa dhabbihii Farmaajo laga diiday kal hore. Gudoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur waxaa la aaminsan yahay inuu sumcad badan ka dhaxli doono haddii uu ku hor yimaado in dad gaara loo afduubo danta guud. Dad badan waxay qabaan in kooxda mashruucan u waalanaysa inay madaxweynaha sumcad darro degdega u soo hoyn karaan. Dhaqdhaqaaqa arrintan waxaa isha ku wada haya guudaan shacabka Soomaaliyeed kuwaas oo raadinaya in suuqu sidii hore noqdo mid u furan dhammaan ganacsatada iyo in Kenya dib u fasaxidda looga beddesho wax danta guud la xiriira. Maxay kula taadiga?